السلام عليكم صاحب عيال kusoo dhawaada janaalka Somali tutorial maanta iyo day 5 xalqadii shanaad muuqaalkii shanaad waa Alibaba course e-commerce waxa idin sharaxana waa ownerka Somali tutorial dabcan hadii muuqaalkan aad daawanayso waxaan ka codsanayaa in sida muuqaalada hore aad ka soo maqashayba janaalka soo kicintiisa nagala qayb qaadato like share subscribe aadan iloobin si markaa back to the position aan sameeyno meeshiina hore aan ugu soo noqono aan ku xasuusiyo koorso kala jirto gurina markaa janaalada Soomaaliya aadan ku arkinina maybe inta aan diyaarinayna soo bixi doonto dadka ka hadlana arki doontaan anna markaa idin keen doon insha Allah hadii jeer koorsooyin fara badan oo markaa practical iyo theory intaba ah oo faa'iido badan waa ka daawateen hadii markaa aad runta sheegaysaan oo kulli cadeen oo ku jirtaa oo bilaylisiidana markaa fiirso dhowr koorso kala duwan ku jiro tanna way socotaa oo day 5 marayna ama muuqaalkii shanaad marayna waxaan rajayn doonaa inaad ka faa'iideysan doontaan wax walba markaa yacni ay idin sheegan aad isku dayi doontaan insha Allah haduu alla idmo sidoo kale tan waxaan rajayn doonaa inaad ku guuleysan doontaan day 5 wax kale kuma sharaxeeno how to judge supplier inaad cali iska tagtid alaaba iska dooratid waxaaga kaarka soo sameysatid qof aad jad inta ku dhifida iska raadishid doesn't mean wax macnaa ma soo kordhinayso danna kugu jirto kaliya waxa rabaa qaabka oo la hadlayna aan kuma sharaxi karo hadoo practical mismeeno qof sana la ma ku dhawey ma hortaagno ma fahantaa lama la hadlooy laakiin su'aalo yar oo markaa dan ay kugu jiri karto hadaa ilaawdana dhib ay ka iman karo ay rabaan meeshan kaaga dhax sheego meela kaaga sheegay nut qaado ad qoro ويا صاحب كما ديرانايو muuqaalkan waa day 5 hadii wili aan janaalka subscribe saaran waxaan ka codsanayaa saaxiib jaakna subscribe saarto 10 qof hadii daawato 10 qofood marka ay intaba like ay saarto youtube ka 10 kala ama 20 kala uu sii tusaya marka hadaa daawato saaxiib haagi iloobin insha Allah supplierki waa la soo jaad gareysay su'aalaha ugu badan oo ku weydiinaa waxay asoo kula hadlin inta joogta ku dhihin yaani meeqa xabaarata waxa soo dhan inta ku dhihin wuxuu ku leeyahay yaani productigan meeqa xabaa kartaa how many pieces you want what are the quantity you need waxyaalo noocaas ku soo qoraya dantiisu buu fiirsanaya mise xabaa ku siinoo iska leeyahay marka adiga quantity iyo basis ku dambeeyo waa ina dhacdaa horta ko productiga aan rabo yani ma ii sharxi kartaa explain ma siin kartaa inkastoo hal mar af Soomaaliya kugu sheegay kadibna aad Google sida Ingiriisi u bedeli karto can explain this product for me waa dhigi kartaa ku sharaxaya markaas productiga soo shaqeeyo waxyaalaha markaa faa'iido leeyahay advantageskiisa asoo ku sharaxayo haddii xataa uu ka diido wuxuu weeraan wuxuu ku sameyn karaa muuqaal productiga oo ku soo daraya oo muuqaal markaa productiga lagu sharaxayo asoo markaa video ah kaaga ma daray waa in iska weydiisaa waxyaalaha kale muhiimka aan ku sheegay waxa taa saaxiib wax kale ma aha waa in qofka iska weydiisaa productiga hadii maanta aad iibsato ilaa ay waqti intee qaadan kartaa how long it will take to arrive my agent ha ilooyin su'aashaas tusaale yara ku siinaa agentida Soomaaliya alaabaha keen way badan yihiin mid kamid ah alaab kiibsatay midka aan tusaale aan ku bari doono kaleeto oo aan ka iibsaday alaabaha dabcan midkaas habi cargo wala diyaaradiisa jimcay soo baxdaa Alibaba sibdi ahad laga ma shaqeeyo isniinta la furaa shaqooyinka arbaca alaab iibsatay alaabta qofka ka iibsatay wuxuu joogaa kala galmudug meesha loo rabo ama agentiga xaruntiisa ku taala Banaadir mooto inay soo qaadina gaari soo qaado xawaaraha ama farqiga u dhaxeeya waa dareemi kartaa waxa laga yaabaa alaabta inay dib u dhacdo jimco kale meesha laga diyaarada ka soo tagto waxay sugaysaa jimcada kale faa'iido ma kugu jirto adiga marka mar walba isku day hada alaab gadanayso waa inay isniin gadataa su'aashaasna waa inay weydiisaa wuxuu ku dhaca 2 day 3 day ama 1 day oo kaleeto waa u sheegaysaa inay falaadka ay soo baxayso maalin jimca ka soo in alaabta la geeyaa waxa kale oo isku weydiinayso very important ah productigan diyaarad ma lagu ship garan karaa this product can be shipped by air waa inay weydiisaa waa very important tusaale waxyaalaha kansartu waxa jira wax diyaarad aan la ogolaan oo kale waxyaalaha bateriyash ku jiro oo kale iyo lama ogolaan inta badan waxyaalaha markaa qoyaan inta badan kaamiyeelaan waxa ku dhacay markab waa ina ka dhigtaa marka waa ina isku weydiisaa wixii gadatay waxa ka gartaa hadhow refund yaa sameynaya rafaadkaas maxaa ku gulinaya iyo lacagtada bilay ka maqnaanay dibkaas maxaa ku gulinaya marka hore isku weydii waxyaalaha kale muhiimka isku weydiinaysaa waxay tahay yani this product what is the weight for this product ama how many kg for this product culeyskiisu waa imisa aniga waxa ka rabaa 10 xabo ayaan rabaa 10 xabo culeyskooda ma qoona qanaa 10 xabo waxa la culeyskooda waa intaas kadib waxa ku dhibsanaysa diyaaradda ku keenaysa ama agency ku keenayo halka kiilo inta culeys oo ku keeno yani halka kiilo inta lacag ku keeno waxa la tusaale kiilo $10 ku keenaa ninkan wuxuu ku dhaashay 5 kiilo productigan 10 ku dhifo waa imisa $50 productiga lacagtiisa waxa ku noqotay $30 ku dar $80 transaction-kii iyo yani shipping cost-kii iyo motoraaci waxa isku dar $90 ku tagtay 10 xabo yani oo product ah 10 product oo $90 ku imaana gurigaaga hadii xabada $9 ku firdaa imisa gidi kartaa adi wadanka meeqa laga gadaa
waa inaad isweydiisaa wax intaadan gadan ka horaaba ogaa kartaaba gurigaaga intay kugu imaanayaan fahant marka maskaxda ka shaqaysii maraba inaad ku dheeraado su-aalaha muhiimka waa ku sheegay iska weydii yani waqtiga ku ajentii ku rasiif garan kara ama ku heli karo iska weydii kg-ga productigaas iska weydii in diyaarad lagu qaadi karayo in kale iska weydii yani productigan tayadiisa haddii tusaale aad saacado iyo wax noocaas akin rabto inay yihiin in wax biyo gala inay biyo galaan waterproof yihiin waxaasoo dhan iska weydiiso aan markaa kugu talagalay kumana dheeraan karo yani muuqaalkaada ugu dheeraana waxaan isku dayi doonaa in su-aalahan aan listi kasoo sameeyo ilaa iyo 10 su-aal way gaaraan kadibna file ahaan intaa idinkugu soo daro telegramka aan idiin soo dhigo haddii muuqaalkan aad daawanayso halahan aad soo gaartay telegramka iska sii joongaree si hadhow aad u hesho haddii kaleetana markaa yacni markaad daawato muuqaalkan soo joongaree insha allah صاحب waxaa rajinaa nagala qayb qaadato janaalka dhistaankiisa yani inuu positionkiisa kusoo noqdo laagta hayloobin sharta aa ka dareemo muuqaalka xigo ama day 6 ama day 7 na hadda ayaan sharixi doonaa insha allah waa la idmo kadibna waa daawo doontaan aad ayaan ni salaamaa qof walba halkan ku xiranne si respect leh marka ayaan ku salaamayaa tan iyo muuqaalka xiga sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh